بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa TV-gii Wadani TV ee aad naga daawanayseen. Dadweynaha Soomaaliyeed oo daligiinta aqoon-yahaniinta dhammaan Soomaali oo idil waxgaradka fadhi-u-diinka waa TV-ga keliya ee qadiyadda dalka iyo dadka iyo diintaba ka hadla. Haddii aad doonayso cod, kicin, isku dir iyo abaabul aan dan Soomaali ka lahayn dhegeyso BBC iyo raadiyaasha kale. Haddii aad rabto rasmiga halka ay ku shumanayso Soomaaliya dhegeyso dhegtaadana ha u furanto oo keliya radio.com oo Wadani TV beeskiisa ka heli kartaan. Hawa waxaan idin sheegayaa barnaamij aad iyo aad ugu heli doontaan oo horey sida aan idinku sheegayba aan ku sii jirnay dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee haatan aan u bixiyay isma-dhaantiya dhashay. Isma-dhaantu waa labada sharci, dhasheedana waa baarlamaanka. Dowladda Uganda ayaa waxa ay saartay doon duulasho waxayna kaga soo dhex tagtay badweynta Hindiya halkaasoo shaki ku jirin inay ku muquuranayaan. Annagu haddaan nahay bahda Wadani TV.com waxaan ka hadalnaa waxa Soomaaliya ku soo wajahan wanaag iyo khasaare. Kama hadalno waxa markaasi dhacay, mana nihin kuwa olaba ama dhinac u janjeera. Waxaan nahay kuwa wadaniyadda qadiyadda ee dalka dareensiiya wadaniyiinta aqoon-yahaniinta dhammaan Soomaalida dhegtooda oo keliya indhahooda ay yihiin radio.com iyo Wadani TV.com. Waxaan u malaynayaa dowladda ku-meel gaarka ah inaan horay idinkaga soo sheegay oo ay gashay buuggayagii aan gelinay dhammaan intii Soomaaliya dowlad laga soo dhisay dagaalkii sokeeye intuu u socday oon ugu magac dari jiray xilli iyo xilli xunjoog. Haddaba Wadani TV mar walbaba indhaha ayaa saartan waxa aan idin sheegno oo idinku soo wajahan. Maantana waxaan idin sheegayaa oo aad la socon doontaan 6 bilood oo soo socota Soomaaliya waxa ku soo wajahan. Hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxaa xukunto horeyna idinkugu sheegay oo Wadani TV u furay ay inaan dareensiino in ay Soomaaliya tahay ubuucda Soomaaliya kooxda ugu weyn uguna xoog badan sida ay rabtana yeelaysa 20 sano la soo qasay. Ubuucda Soomaaliya waxaan u naqaanaa oo aan u bixinay dhammaan qaramada midoobay iyo reer galbeedka oo ay fulfiliyin u yihiin bariga Afrika haatana ay xudun u tahay Uganda ciidamadeeda Soomaaliya joogo sidaa awgeedna ee 20 sano ku lahaayeen Soomaaliya dhibaatooyinka Soomaaliya ay soo socday. Haatana waxa ay doonayaan kooxdan aan u bixiyo ubuucda Soomaaliya oo 3 sano isku daray in ay gaadhay xilligoodii ay rabeen amniga Soomaaliya inay gacanta ku qabsadaan. Ilaha nagu soo fuulay waxaa la diyaariyay 3,000 oo ciidan in gaaraya 2,500 oo dhinaca Kenya lagu soo tababaray oo Soomaali ah. Waxaana gacan weyn ka qaatay dowladda Kenya iyo Mareykanka waxayna ka soo tallaabayaan dhirta xuduudka Kenya iyagoo oo gaari doono ilaa marka amnigana gacanta ku dhigi doono cagtana marin doono Al-Shabaab. Waxa ayna soo qaban doonaan 3dii Mareykanka oo sida baan u raadinayay ee ka dambeysay qarashii safaaradaha Mareykanka ee ku taageeray bariga Afrika. Isla markaana waxaa soo gelayay ciidana 2,500 ilaa 3,000 oo ciidan ah Itoobiya lagu soo tababaray oo Soomaaliya oo ka soo geli doono ilaa dhinaca Gedo ilaa Feefeeri iskuna taagi doono ilaa Galmudug ilaa Hiiraan kuna imaan doono ilaa Afgooye iyagana inta amniga gacanta ku dhigayo. Dowladda ku-meel gaarka ah oo hadda la raaciyay sidaan horey idinkugu sheegayna waxaa la soo geli doonaa ciidamadii laga baahnaa in khatar Soomaaliya ay kaga soo foolaato oo khatarta kusoo wajihi kara la baabi'iyay oo haatan isla gartay in xilligii ay geli lahaayeen khasaare kasoo gaari karo Soomaalina ay tahay
waxaana soo galaya ciidamo isku dhafan oo Afrika iyo isugu jiro oo hogaaminaya korneyl sargaal qaramada midoobay ee soo magacaabay oo Soomaaliya hoggaanka u qaban doona inuu amniga la wada wareego. Qorshahaas ayaa ah qorshaha lagu raaciyay labada shariif oo waxba garanaynin aan u bixiyay isma-dhaanta iyo dhasheedii iyo baarlamaankiina halkaa ayuu ku takhalusay sababta oo shaaci haddii madaxweynaha la cunay iyo baarlamaanka dowladdaasi ma dhismaanayso waa dowlad cusub waxaana loogu talagalay in lasoo saaro baarlamaan yan oo tayo leh ilaa 270 xilligaasina waxay gacanta u gelaysaa saan horey idinkugu sheegay kooxdan loo bixiyay ubucda Soomaaliya ee qaramada midoobay ee galbeedka iyo bariga Afrika oo isku daray ah inay xilligii dadka ugu talagaleen la gaaray amnigiina gacanta ugu dhigeen ayna dhihi doonaan halisoo sharaxo doorasho xora oo madax bannaan. Taa ayaana ugu sii leeyahay in aan dhaho haatan inay labada shariif ay dhahaan Yoweri Museveni iyo midida gacanta aad ku haysaha nagu qalina midda dhulka taalo intaa ayay mid ka dayayaan tan waa dhigayo tan la soo qaadayo oo macnaheedu uu yahay in halkaas sano gudahood ay wixii dhici karaan iyo waxay samayn karaan ay samaystaan iyagana labadan kale qorshe kale oo gooniya u qarsoon labada shariif oo iyagana ay doonayaan inay amniga xoog ku qabsadaan waa fikradihii horey ah ee kaga soo sheekeeyay laakiinse uma suurtagelayso waayo waa laga takhasusay oo ciidamada kusoo wajahan 3 bilood oo lagu soo filnay ilaa 6 bilood ayaan sidaa idinkugu sheegay 6 bilood kadib waxay gacanta u gelaysaa ilaa 8 bilood sanado dambe tuaalidka bisha afraad intaan la gaarin golaha ammaanka kooxyahan aan u bixiyay ubucda Soomaaliya oo amniga Soomaaliya gacanta ay ku hayaan. Waxaa marka halkan mar labaad dansi ah oo ugu digaya sidii al-shabaab aan ugu digay iyagoo xamar iyo meel walba haysto wax dagaal ku soo foolaha in dhalinyarada maskaxda laga khalday ay kusoo fuulan yihiin hadda kooxaha loogu talagalay inay baabi'iyaan haraaga al-shabaab ay kasoo wajihi doono ciidamo fara badan oo ka imaanaya Kenya ilaa dhinaca Itoobiya. Sidaa awgeed waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda laga khalday al-shabaab ay ku qaldeen inaysan ku dhimanin oo ay isu diidaan oo ay isu si amni ah ugu badbaadaan dhaawac iyo dil kusoo foolaha oo kusoo wajahan. Waxaan annaga ka saadaadina ama aan afka idinkaga sheegnana isha kama marataan oo waa dad idinkoo xamar meel walba haysta awood aan lahayn oo xaqiiqo dadku ma gaarayo wax idin soo weeraraya aysan jirin ayaan horey idinkaga soo dhignay in dagaalkan idinku soo fool leeyahay. Hadda waa dagaalkii lagu ciribtiri lahaa laguna soo qaban lahaa haraaga haray iyo dadka loo dan leeyahay. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee al-shabaab afduubatay waxaa ka codsanaya inay isu soo dhiibaan oo aysan wax dhibaato ah si ay uga badbaadaan dil iyo waxyaalo kale oo dhibaataysan waayo waa dhalinyaro la fuday oo jaansigan ay ka faa'iidaystaan. Ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahaniinta wadaniyiinta waxaan iyagana u sheegayaa khasaaraha uu leeyahay in qabiil wax lagu raadiyo oo ay tahay in hadhowta uu soo bixi doono sharaf maskiin oo kaleeto oo raadinayo wuxuu qabiilku kusoo helay. Raggan baarlamaanka anigu uma aqaan waxaan baarlamaanka adduunka ay ka matalaan oo keliya waa hal xabo halka xabana muxuu yahay marka ay fadhiyaan hoolka oo kuraasta madaxa kasoo jeediyaan ayaa waxay u ogyihiin muuqaal baarlamaan sidaa daraateedna aan ugu bixiyey kooxda aan u bixiyay muuqaal baarlamaan. Labada shariif iyo marka laisku darana waxaan u bixiyay isma-dhaantood dhasheedii dhammaantoodna way tegayaan. Waxaa lasoo saaray doon badweynta Hindiya lagaga soo tegay oo aysan garan karin inay dulashay in kalena aysan ogeyn. Haddaba dhalinyarada wadaniyiinta aqoon-yahaniinta la socota wadani TV.com waxa uu islaan horey idinkugu sheegnayba in aan ka hortagno ubucda Soomaaliyeed oo dhalinyaro SYL ay soo baxdo oo ugu magac dhalinyarada haatan fiidiyaha furtay oo kale ruuxaan.com oo ah midowga dhalinyarada Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SAI. 20 sano markuu sidaa dagaal loo soo horeeyay waxaa wanaagsan in aan dhisano dowlad aan weligeed rajo laga qabin inay burburto oo dhaxalsiiso in ay kolba jiilba kala wareegaan sida lagu yaqaano dagaalada dalalka soo baabi'iyay. Sidaa awgeed waa inaanan la iska tuuraa laiskana baabi'iyaa
qadiyadda qabiileed oo meelaan la geynaynin oo wax dhibaato ah intii horeetana nasoo uryaamisay haatana wax raja ah aysan jirin. Aasaaska guriga haddii la khaldana isagana wuu dilayaa. Macnaheedu waxa weeye dhibaatada intaa leeg ee na soo gaadhay haddaan nahay Soomaaliya, dowladdii naga ciribtiri lahayd haddii aan ka dhigno qabiil oo aan ku dhisno khasaare lagama baqayo. Xataa haddii ay amniga la wareegto mucaarad dhanbaa ku dhalanayo, mid amnigeeda laga cabsi qabo ayay noqonaysaa. Laakiin haddii dowladdan dambe ee hadda nagu soo foolay ee idiin sheegay ee golaha ammaanka iyo golaha ubucda iyo aan ka hortagno oo la sameeyo waddaniyada aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed oo iskaashatay oo lagu keeno dowlad lagu soo dhisay, waxaa xaqiiqatan ah in la heli hayo dowlad sal adag oo weligeed rajo laga qabin amnigeeda inuu burburo oo dhaxalsiiso jiilba jiil ku dhaxalsiiso aqoon-yahaniin iyayaa dalka iyo dadka guud wax u qaban karaa. Waxaana halkan ka baxaya mar laba kale inaysan la soo dooranin ama Soomaalidu aysan ku lugu-in kuwa aan waxba garanaynin oo dhibaatada iyo khasaaraha sida kuwa aan ugu magac daray oo kale isma dhaanta iyo dhasheeyo. Mahadsanidin daawadayaasha qiimaha leh qayaalaha wixii faahfaahinaysa waxay ayaa nagala xiriiri kartaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa barnaamijkan ugu magac daray labada shariif oo midida Yoweri Museveni ku leh lagu qalay midda gacanta aad ku haysay midda dhulka taal lagu qaado waa isma dhaanta iyo dhasheeyo. Kulley iyaga oo tagahaya oo loo qabaynayo doon la soo saaray oo Uganda ay doon soo saartay badweynta Hindiyana kaga soo tagtay ma aha in ay qadiyadda iyo dadka iyo dantoodii ay ka waadaan. Mahadsanidin.